أهلا وسهلا علي. وانكو سلامي مدن جورج. هاي علي يورن. هاي سمارتين فريسو كورن أحواش هذا. الحمد لله آدي بنو في عنا. نوغورن بالحلقة وستوي هنا. قعمها هيك نسكجوي. قعمها يسكجوي. توجني. هذا هنجرتي. مركا يرى. هلك توجني ماذا كسب بلاوي. قلمان تيو وراقة يبوجاكتي. وحسن كحاجة الأرض ده. سيدرونتي وحول بنا أركنا ونقادن جري markaa kadib wixii aan soo qaato waxaan kala qaybsan jirnay saaxiibaday halkaas ayay igu horeysay markaa tuuganimada maxaa xad jirtay caaloo markaa waxaan qaadan jiray moobeelada dahabka wax laala wixii iga soo arbaxa weliga marna laguma qaban miyaa weliga hal mar layguma qaban kadib maxaa markaa sidaruntii waalidkay wuu qaban jiray aabahay wuxuu igu oran jiray iska daa tuuganimada markaa sidaa weeye waan u diri jiray marka waxyaabahaas oo kale igu arko markaa sida runtii aabahay waxaa nin fiican oo shaqaysta si fiican ayuu na masruufi jiray sida runtii laakiin aniga sida runtii kadib waan fakaray markaa tallaabadii ugu horreysay ee aan qaaday waxay noqotay inaan gacantaydan aan hoos dhigo tareenka ordaya ayaan gacantayda hoos dhigay sidaas markaa gacantada mawduuc tareenka hoos dhigtay gacantayda ayaan hoos dhigay anna waan jiifsaday aan arkay tareenka soo socda waan shahaaday waxaan la ilaahay ilaa maxamed rasuulullah iimaan ka iman markaa saacadii bad ayuu dhiigu iga soconayay kadibna uu iska joogsaday sida runtii gacantu dee imay burburin meeshii afkaas ayay ka gooday gacantu kadibna dhiiggiiba ayaa isku xidhay afka gacanta miyaadan xanuun dareemin sida runtii waan adkaysanayey si aan xanuunka si ilowsiiyo waxaan niyeystay inaan ahaa nin toobad keenaya markaa qalbigayga waxaa ka buuxday naxariis xagga ilaahay iga soo degtay sidaa awgeed ayaan markaa u adkaysanayay ilaahayna wuxuu la jeclaaday inaan jidkaa xun aan ka soo leexdo way gacantaada kalena siad u goysay markaa sanad iyo badh kadib iyadana sanad iyo badh kadib ayaan gooyey iyadana tareenkan u dhigay markaa waxay u kaliftay inaan gacanta kala gooyo iyadii baa shaqadii sii waday oo moobeelada iyo wixii aan qaadanayo gacanta kale ku qaadan jiray markaa sidaa awgeed waxaan go'aansaday inaan ta kalena ali su'aalan ku weydiiyo ma gacmaha ayaa waxaada mise maskaxda ayaa kulli way soo dootaan maskaxda marka ay ku dirto gamcuna way qaadayaan maskaxdu ha maamusho laakiin kuwa wax fulinaya ee wax qaadaya waa gamcahan sidaa awgeed ayaan gamcahan marka adigu naftaadii ayaad ciqaabtay weeye markaa sidaasaan sameeyey intaan aakhira lagu ciqaaban inaan anigu ifka isku hadda ma joojisay markaa tuuganimadii hadda ma hadla noloshay aabbaha marka aabbahay guriga dushuu degan yahay aniguna hoostan deganahay maba wada hadalno adigu lama hadashid maya anigu waan rabaa inaan la hadlo laakiin isagaan rabin inaan la hadlo xaq buu leeyahay inuu ku cadhoodo miyaad waalneed adigu maya anigu ma waalni nin aqli laanahay ma sidaas aqli ku leedahay markaad gacmaha iskaga goysay waxaa sidaa u sameeyey waayo berrika maalin waan dhiman karaa mana rabo inaan toobad xumo ku dhinto anigoo tuuga oo wax soo xaday inaan ku dhinto waxaan jecelahay dadka dambana inay iska daayaan oo sidaa kuwaan qaataan haddaba waxaad ii sheegtaa barnaamijkan adigu maxaad ku timi marka haddaan kuu sheego barnaamijkan waxaan u imi waxaan doonayaa aniga iyo aabbahay inaadna heshiisiiso adood heshiisaan adiga aabbahaa miya halkan waxaan u imi in aabbahay isaamaxo oo dhibaatadii iyo colaaddii aan u geystay ii sheeg aabbaha iyo caloolxumadii waa 8 hadda waa dhallinyaro aabbahaa aabbahay waa dhallinyaro da'diisa saxdaa garan maayo wallaahi garan maayo inta jira da'da saxda waan gartay imise kale ayaad walaalatihiin wiilalii gabdho waa 4 waa 2 hablood iyo markay ogaadeen inay gacmaha ugu go'een maxay sameeyeen bay iga cadhoodeen markii aan gacmaha iska jaray aabbahay way cadhooday walaalahay way cadhoodeen kulligood way wada cadhoodeen way cadhoodeen habluhu way cadhoodeen aabba way cadhooday inamadu way cadhoodeen laakiin nafteeda waxaan barayay eedaab laakiin iminka haddii aan qaangaar ahay anigaa nafteyda mas-uulka ah marka wixii khalada iyo wixii saxa waan kala garanayaa qof weyn baan ahay ilaahayna wuu igala xisaabtamaya marka anigaa nafteyda xisaabiyey adduunyada inta la joogo intaan aakhire la gaadhin waayo ilaahay baa wuxuu yidhi isxisaabiya intaan laydin xisaabin qof waliba dembi wuu gala laakiin wuu ka toobad keenaa aniguna markaa bila'aadanuun baan ahay khaldamay marka aabbahay si xun buu iga cadhooday imikadana wuu cadhaysan yahay waxaana doonaya inuu saamaxo anaga dhammaantiin baad naga ogeysay qisadaadu yani waxay sheegaysaa inaad moobeyl iyo aad xaddo waxyaalo kale oo yaryar bal ka waran kuwa dahabada iyo bangiyada waaweyn madaxda aniguna markaa bila'aadanuun baan ahay khaldamay marka anigaa nafteyda xisaabiyey waan kaaga mahad celinayaa imaashaha timid stuudiyahan runtii sheekadaadu iyo qisadaadu aad bay noo murug gelisay dadka daawanaya kuwa joogaba dhammaanba
sida ay waalidkaa ee reerkiinu uga murugoodeen bay anagana noo saamaysay. wax kastoo dhaca hadda waan u jeedsanay imanka inaan waalidkaa gaarsiino fariinta. ma mooday isagu laakiin risaaladaan u diraynaa inay adig kaa socoto, balse laakiin anuu moodayaa bal aan wada aragno. ها مدن تشارشو وان سي سودا حتى وانيغا جيني رسالتي waxaanan wadaa maxamed cafiifi. dacdada maanta ilahay waa dhacdaan caalamka lagu arag taariikhda caalamka o dhanba kamay dhicin. wiil dhallinyaraha oo xada yidhina dhiiggayga raacdaba tuugnimadu marka hore gacantuu gooyey, markii labaadna gacantiisa kale iska gooyey. siduu isagu noo sheegay wuxuu yidhi naftayda ayaan xukumay, xukunkiina waan fuliyey. gacantiisii ayuu hoos dhigay waddada tareenka, kadibna tareenkii ayaa saa ku jiidhay oo gacantii ka gooyey. iminka stuudiyaha ayuu noogu yimid uuna noo sheegay siday wax u dhaceen. waanu noo sheegay inay hilkii ay la yaabeen kuna xanaaqeen. aabbihii wuu xanaaqay isaga. aabbihii lama hadlay isaga. wuxuu halkan u yimid inuu aabbihii raaligeliyo. isaga oo labadiisa gacmood go'an yihiin ayuu rabaa aabbihii inuu cafis weydiisto. una sheegay aabbihii inuu iska daayey tuugnimadii uu noqdayna qof caadiya, laakiin labadiisa gacmood way go'an yihiin. aabbihii maxamed waanu yeedhnay, waanu yimid. codsigiina waa naga oggolaaday. hadda wuxuu ku jiraa stuudiyaha wuxuuna naga sugayaa intaan soo gudbinayno. haddaba aan soo wada dhoweyno maxamed cafiifi. السلام عليكم محمد. kaa qaadanagana joogteed waan dhowahay. ما شاء الله aad iyo aad waan dhowahay waanan ku faraxsanahay. ka waran maxaad dareentay markii lagu yidhi barnaamijka musaamax kariim ayaa lagugu wallaahi yeedhaya? markii fariintaadii soo gaadhay waan ku farxay. sharaf weyn ayay ii tahay. waxaanan ogahay inaad tahay nin aad iyo aad u wanaagsan, barnaamijyadaaduna ay aad u Sidee fiican yihiin. sida laajigeed ayaan kugu yimi markaa. alxamdulilah, nin fiican oo barnaamijyadiisa aad u fiican yihin baa tahay. mahadsanid. sida laajigeed ayaan ku aqbalay fariintaada. adiguna sharaf bay tahay saad u aqbashay fariintayda. adigoo karaamaysan baana timid barnaamijkan. adoo karaamaysanna waad ka tegi doontaa hadduu la yidhaahdo. waad mahadsantahay, aad baad u mahadsantahay. ilaahay bal adigu iga waran dhammaanba xaaladda xaafadda iyo cayladaba. wallaahi alxamdulilah maasha allah. iga waran carruurtaada iyo dhammaanba waa sidii xaalkoogu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. aniga qoyskaygu wuxuu ka kooban yahay 7 maasha allah. waa anigii xaaskayga iyo 5 carruura. adiga iyo xaaskaaga iyo 5 carruura maasha allah. haa 5 carruura, ilaahay ku 3 wiil iyo 2 hablood. miyaa la qabaanaa? midna waxbarasho ku jirtaa, midna waa la qabaa. inanta wax barataana weli waa yartoo xilli guurmay gaadhin. ilaahay kuu daayo dhammaanba. aamiin aamiin dhammaanteena. adiga naftirkaagu waxbaad isweydiinaysaa maxamedow. waxaanad isweydiinaysaa sababtan kugu yeedhay iyo weliba ciddii kuu yeedhay. aniga markay yimaadeen fariisadayaashaadu markiiba waan aqbalo waan soo raacay. sida laajigeedna waxaan ku ogaaday in adiga kula kulmayo. aniguna waan kaaga mahad celinayaa inaad aqbashay fariintaydii, waanan kugu ixtiraamaya. ma ogtahay cidda kuu yeedha adiga markaa? anigu waan ku soo gaarsiiyuun. qof baa jira aniga iga dalbaday inaan adiga kuu yeedho. haddii aad doonayso inaad ogaato shaashadda agtaada eeg. allah kan waa inankayga. waa inankaagii. wallaahi waan yaabay, aniga kadis baad igaga dhigtay. ninkan aniga wuxun buu igu sameeyey. hadduu naftiisa ciqaabayo annaga miyaanuna weydiiye maan ahayn oo maanan dhalan anagu. waxaanu ka cadhaysiiyey dhammaan qoyskii oo dhan. aadna igu horta maxamed fadhiiso. wallaahi waad iga yaabsay. aniga ninkan kadis baad igaga dhigtay. soo fadhiiso horta. labadiina ayaa wada hadlayne. imankan aniga labadiina wada hadlayna fadhiiso. sidii aabbe oo kalena wada hadlaynaa. bes haddaba fadhiiso. ii fadhiiso. anaad martii tahe. arrinku inankaagu sameeyey waa arrin aad iyo aad looga naxo. annagoo dhan baa ka wada naxnay. waa arrin laga wada naxo weeye. iyo malaa'iinkaa qof ee daawanaya barnaamijkan ku xidhan sidaad idinkuba aad uga naxdeen. anuma aaminsanin qof baa naftiisa ciqaabaya oo gacanta koowaad iska goynaya, kadibna gacanta labaad iska goynaya, oo weliba dhahaya anigu naftayda ayaan xukumay waanan ciqaabay. sidan ma si fiican baa mudanay? maya ma kula fiicantay markaa? ilama fiicna aniga. sharci baa jira, qofkii dembi gala
ilaahay baa ciqaabtiisa leh. laakiin runtii naftiisa ayuu aad u dulmiyey inankan dhallinyarada. isagu naftiisa mu dulmin, annaguna dulmiye, annaguna dulmiye. intuu annaga muruga nugu beeri lahaa isagoo naga dhintaa noo dhaami lahay. aan ku su'aalo, qofka labadiisii gacmood waayey miyaanu isaguba dulmaneen? ninkan aad arkaysaa annagaa dulman ee isagu ma dulmana mudane. waan ogahay laakiin sida gacmihiibu iska gooyey miskiinku. idinku waa run waa dulmantihiin, laakiin midaan ku idhaaho isagu meesha muu jooga imanka? maya, meel kale isugu joogaa. haddaana anugu aabba fiican ahaan lahayn, inankaygana si fiican ugu soo tabci lahayn, wuxuu sameeyey kamaan xumaanayn. anna taa murugada igu reebtay waa taa. haddaana anu ninkaas si fiican wax u bareen kama waan xumaadeen arrinka jira. wax walba uu doonaya waanu samayn jirnay. muxuu markaa abaalkayga sidan uga dhigay? dhammaanba reerkii oo dhan buu ka wada murugaysiyey. laakiin siduu wuxuu isagu sheegay in tuuganimo ay naftiisa raacday oo waanu awoodi waayey inuu iska gooyo tuugannimada. waa isku dayey wuuna awoodi waayey, kadibna gacan buu iska gooyey. haddana wuu deen waayey, gacanta kale haddana iska gooyey. markuu tuugannimada deen kari waayey isagoo gacan tahay ayuu labadii gacmood waxyaabaha yar qaadqaadi jiray. anna waxaan ku idhi aabba waxaan ma wanaagsane waa xaaraan. annaguna qoys wanaagsan baannu ahayn oo ilaahay baa mahadle wax walba haysta. alxamdulilah, marka horena dad ilaahay ku xidhan baannu ahayn, diinta ku dhaqma, ilaahayna mar kasta raalligeliya. waanu sheegay aabba maxaa waxaad u samaysay? qofka waxaa sameeyana naartuu gelaya. taasi bilowgii hore ahayd. su'aal yar aan kaa weydiiyo, mideebaa adiga kula wanaagsaneed? inuu gacanta iska gooyo iyo inuu xado, teeba adiga qaadan lahayd? bal mideebaad ka qaadan lahayd isaga? anuu raalli kamaan ahayn ba horta. wuxuu sameeyeyba dee wuxunuu sameeyey dee waxa fiicanba may ahayn. ma tuuganimada mise gacmahu iska gooyey? tan iyo tanba labadaba. labadaba. iminka gacmihuu iska gooyey inankii. horaan kuugu sheegay hadda ka hor markuu waxaanoo kale sameeyey tiir baan ku xidhan. cuntadii wax walba weliba halkaasna gu goyn jiray dee si uu iskaga daayo tuuganimadan. in walba dacwaddiisaa socotay oo igu socotay. maxaan sameeyey dee marka anugu waan ka furoo maalin walba reer baa noo imanayay. waxbuu naga qaatay, waxbuu naga xaday, inankiinu naga qabsada. dacwadduna halkiin bay ka sii socotay. dee maxaan sameeyaa? sidaasaan xal u arkay. xitaa waan dili jiray siduu u waantoobo waxaan iskaga daayo. taana faa'iido wuu ka keeni waayey. waan dilay waanan xidhi jiray. maalin buu xadhigga iska furay, annaguna waxaan moodaynay inuu guriga dushiisa saaran yahay. intuu tegey 3dii habeennimo ayaa naloo soo gelay inankayga oo gacan go'an tahay. annagu magaaladan degganna waxay leedahay waddada tareenka. waxay noo jirtaa in gaadhisa ilaa in loo socon karo 10 daqiiqo. 3dii habeennimo ayuu halkaa noogu yimi isagoo gacantu go'an tahay. albaabku si xun noogu soo garaacay. saaba gacan baa go'anba. war wakhtigaa maxaad samayn karaysaaba? ama maxaad qaban kartaa xilligaa? maxaad qaban kartaa? maxaad samaysay marka adigu maxaad samaysay wakhtigaa? la rumaysan karay xilliga wax dhaceen mabay ahayn badda. ismaanu lahayn arrinkan oo kalaa dhacay manaan filinayn. xitaa magaaladii tuuladii oo dhan baa yaabanaydba. miyaad dishay adigu markaa? wax miyaad ku dhufatoo disheenaa? miyaad disheen? ama xilligaas ma xilli wax la dilay taagantii? markii ay gacantu go'an tahay maxaad samaysay adigu? ninkani gacan keliya go'an buu noola soo galay markaan albaabkii furay. bal ka warran markaad albaabkii furto oo inankaaga gacani ka go'antii uu kuu yimaado maxaad samayn lahayd? oo dadkii oo dhan ay ku hareeraysan yihiin wakhtigaa maxaad samayn karaysaa? baliisha naxdin weyn weeye. waa naxdin weyn weeye. haye maxaad ku tiri markaa adigu? maxaan ku dhihi karaa anigu? miyaanad ku horan maxaad u samaysay arrinkan? wakhti lagu fikiraa canaaniyo iyo wax kale toona may hayn. inankii baa dhigbaxayeyba. aan ku fikirno halkaa dhakhtarinii ku dhow mooyaane dilmiyo waxaana mabaan xasuusnaynba. annaga waxaan ugu weynayd inaan wax badbaadinno. maasha allah wiig baan dhakhtarka ku haynay. ilaahay baa caafimaad siiyey, ilaahay baa daweeyey, waanu ka soo baxay. anuu habeen iyo maalinba dhakhtarkaan la joogay. haddii inuu aniga xaggayga nusqaan ka tirsan lahaa dhibba umaan arkeen. laakiin haddaanaanu nusqaamin waa taa iga murugaysiinaysa. gacantii midig buu iska gooyey, kadibna gacantii bidix buu iska gooyey. bal maxaan samayn karaa? anigu noloshiisa waxaanan u samayn maba jirtaba. inuu qayrkii ka hormaro ayaan jeclaa anigu mar walba. markii hore wuu naga nixiyey, haddana markii dambe wuu naga nixiyey. annagu ma naxin banuu joogaynaa. gacanta labaad haddaba siduu ku gooyey. waxaa jirtay wakhti 5 meelahaas ahayd. tareennaduna wakhtiyadaas kale xawli bay u socdaan oo wayna dhaafaan. cadadii oo kale ayaa haddana bartaas ka dhacday ilaa aanu ku aragnay xaalad halisa. madaxiisa uu dilaacay siyoo dilaacsan. gacantii labada waddada tareenka taalla. aniga lafteeda la yaab igu noqoto oon rumaysan waayey. waaban yaabay. bal siduu sameeyey qof naftiisii halligayoo tareenka isku dhigaya?
oo miyaanu baqanayn oo dhimasho ka baqanayn aniga laftigayga ayaan taas kale rumaysteenba siduu ku keenay qof dhan intuu tareen isku dhigo uu gacantiisa tareenka iskaga gooyo madaxiisuna sidaas ayuu u kala badhnaa miyaanu ka baqinba inuu madaxoo dhan tareenku ka gooyo labaad anigu sidaasaan kooma ku galo ambalaas bay la cararayba may rumaysanaysaa haa waan ku rumaysanayaa waa aragti xun taasaa taasoo dhacday kale waa aragti aad iyo aad u xun aabba arkay inankiisii oo xaaladdan ku sugan mudane intaanan warqaddan ku akhrin warqaddan isagu soo qoray malihi yani isagaa soo qoray laakiin waa loo qoray hadallada laakiin isagaa lahaa marna ma is weydiisay inuu adiga dartaa isku ciqaabay oo aniga awgeeba isku ciqaabay sababtoo ah wuxuu leeyahay xumaana oo jirkiisa ku jirtay aanu dayn karin anigu waan maqlay wuu ila hadlay ma awoodo inuu iska daayo tuuganimada dhiiggiisay raacday waxaanu gacmaha iskaga gooyey waxaa laga yaabaa inuu rabay inuu adiga kugu raalligeliyo isaguna wuxuu yidhi ilaahay ayaan raalligelinayay dunyada ma aha anigu haddaan wax xiro ama waxaan dilo oo naftaydan ciqaabaya miyaanu jirin miyaanu allayna xisaabinayn miyaanay dawladii jirin miyaanay maxkamadii jirin anigu waxaan isleeyahay arrinkan isaga dartii buu samaystay anigana imuu samayn ilaahayna kumuu raalligelinay adigood u cadhaysan si tahay kastay haataba waa inankaygii warqaddan uu kuu soo diray ayaan ku akhrinaya wuxuu ku yidhi aabbahaygii wanaagsanaayo waxaa tahay shakhsi alle yaqaana garanayana xumo iyo wanaag waxay yihiin waxaa suurtagal ahayd inaan anigu iftilo kugu ahaa adiga waxaana suurtagal ah maskaxdaydu in aniga iftilo igu ahayd tuuganimadu aabba waxay ahayd xanuun aniga jidhkayga ku jira dhexna qaaday jidhkayga awoodna umaan lahayn inaan iskaga joojiyo waan isku dayey inaan iska joojiyo oon sidaa ku noqdo nin fiican oo madaxaagana kor u qaado ka sharfa adiga sidaad adigu waa mar kasta anaga aad noo sharaf laakiin aabbo aniga waxaa iga awood badiyey ina hoggaamiya xanuunkan tuugannimada oon din kari waayey aniguaan toobadkeena aabbe mana laga yaabo inaan ku noqdo sidaan awal ahaan jiray mana laga yaabo inaan sameeyo wax adiga kaa cadhaysiinaya allana ka cadhaysiinaya maanta laga bilaabo laakiin aabboy waxaan doonayaa inaad laabtaada ii geliso sidaad markaan yaraaba aad laabtaada ii gelin jirtay raallina aad iga noqoto anigu dunidan wax kale ka dooni maayo raalliyahaaga mooye waa run anigu waan khaldamay in badan adigana in badan aan ku daaliyey laakiin waxaan imid wakhti aan adiga ku leeyahay iyo weliba dhammaan dadkoo dhanba kuuna sheegaya inaan ka qoomameeyey wixii aan sameeyey waxba igama gelin dadku wax iga sheegayaan aniga taada iyo wanaaggaaga iyo raallinimadaada ayaa ii muhiima aabbo sidee ku dhacday inuu waxaasoo dhan naftiisa ku sameeyo anigu raalli kamaanu hayn waxaasoo dhan inuu sameeyo yaa waa cuntada siiya waa hooyadii cuntada iyo biyaha iyo wax walba iyada afka ugu gurtoo sii siisa anigu waa waan weydiiyey warseed waxu cuntaa baan yidhi wuxuu ii sheegay in isaguba hooyadii ay siiso cuntada haddaba wiilkan dhallinyarada istuudiyaha ayuu noogu yimid annaga waxaanu ku leeyahay laba hadal fiicnaan lahayda inaad ka oggolaato inaad maqasho adeero haddaba la hadal waalidka oo ku dhow aabay saamax anigu waan khaldamay saamax maqal hortay maqal hadal badan uma baahniya daqiiqadii maqal aduun baa sheegi karaa oo iog aniga waxaan galiyo waxaan gudaba ayaa sababtoo ah adigu inankayga rabtay waxbarasho waxaad ila rabtay inaan shaqaysto wanaaggayga ayaad ka tirinaysay laakiin anigu waxaad ii samaynayso o dhan ma jeclayn ilaahay baa sidaa ii qoray waxaan doonaya inaan toobad keeno inaan ilaahay u noqdeen ayaan doonaya war anigu maalinna noloshaada miyaa wax kuu waa diiday may haddaa aniga maxaad iga naxisay maanan waalidka ahayn ilaahay anoo kaa daayey aabbay saamax aabba waan ku baryayay saamax aabba waan ku baryayay saamax aabbo anigu kumaanu baryayay dayin saamax adaa aabbo isteeriyey oo annagana dayriyey aabbo madaxaaga kor ahaado aabba iska kii cafi ma kula fiicantahay adigu waxaanaad samaysay maanta dadkao dhan bayna wada daawanaya ceebteenna imaqal miyay kula fiican tahay adiga aabbo adiga igala weyn masar waxaan doonaya inaad toobad keenay saamax maxamed haddaan canaanano iyo haddaan dhibnaba ma laga yaaba inay gacmihiisa soo noqdaan laa ilaaha illa allah xaashee maya aabbo waxaan doonaya inala hadasho waxaan doonaya inaad sii hore ii ahaato aabbo waan ku baryayaa
aabbo waxaan doonayaa laabtaada geliso aabbo waan ku baryayaa ayay kaalay aniga inaan kula hadlo waxa ii diiday oo waxaad adigu samaysay dee adigu naftaadii ayaa dulmida naftaadii maad daryeegin annagana namaad eegin maxamed wuxuu naftiisa ka xaaraantimiyey labadiisa gacmood aduguna ha ka xaaraantimeen aabbannimada waa nimco ilaahay igu deeqay waad ilaashan weyday nimcada ilaahay siiyey haddaanan iska goyn lahayn amba adaan kugu dili lahaa amba dadka kale ayaan ku dili lahaa fikirkiisa wuxuu ka hadlaya waxba ka dareenteena haddii aanu gacmaha iska goyn lahayn anigu waan bukaa dadku way dacaadaynayaan dadkuna way igu qoslayaan laakiin ilaahay ayaa jooga waxay doonaanba ha sheegaane anigu ilaahay baanu toobad keenay intan ii soo hadhay ayaa wax walba ii qabanaysaa alxamdulilaah aabbay saamax inankii haddaba saamaxaad ayuu ku weydiistay bal adiguna waxaad ka leedahay balaan dhegaysanno caliyow yerisug waad aragto wax kasta oon ka wada hadal halkan istuudiyaha ayaad joogtaan haddii aad saamaxayso idiga dhex furaynaa gidaarkeedii hortaagan laabtaad isgelinaysaan kadibna waad qaadanaysaa inankaagii diyaar moo tahay adigaa ogayaan ku saamaxaya mudane gorgio aniga dartay iyo ilaahay horta ilaahay dartii kadibna waxaad ku cafidaa aabbannimada kani waa inankaagii waan ogahay wuu khaldamay innaga ayaa ka mas-uul ah ubadkeena hadday kuwa ugu sarreeyo kuwa ugu hooseeya bay yihiinba hadda adigu ma saamaxaysaa wallaahay waan saamaxaya waa saamaxday walmusaamax kariim ilaahay kaada mudanaanaysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدنى سلام على مان تاج يا شباب. من كستون تريد أتكلم شو تام بوا ولا كم يتجعل. واحد ما تيلا فديه فيصل كمبالا. فيصل سودو. aad baa ku salaamaya injineer khadar ama injineer samir kulli labadaba ku yaqaanaan waxaan aad horta u salaamaya halka daawadayaashada aad noo daawada barnaamijkan imika ugu dambeeyey saamax kariim meel walba imika caalamka ka daawanaya oo si xoog loogu daawanaya oo intaanu arkayno mahadcelinta ay ka soo celinayaan sida